meesha ku jiro waxay ahayd ani inay igu dhahaaniyo ninkaa eji xataa iskaga fogow aniga platform kaleetaan wataa ani dadka tiktok laga yaqaano dee waxaa macquula tiktok keliya laga yaqaano laakiin dadka isku soo hihiiliyey oo sheekadaas ku imaaday baraado tuuba dheer waa maantana wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi dee wada maqla wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi kutubkaas aa gacanta ku hayo qof bini aadana waxu qaba inuusan jirin waxba uma qaba eega dhan nololtan ugu farxad badan oo adduunka taalla ha ku noolaadaan waa nolosha adduunka ugu sarreyso ha ku noolaadaan laakiin aniga ummadda inta joogta dhan waxaan u sheegaa waxa la igu colaadinaya ee wiilashaas isku wataan waa qabiil ani qabiil ma aqaana iyo qabiil ma ka shaqeeyo iyo ani ciyaal xamara ahay bog waay waxaas dadkan dad qabiil yaqaana oo qadiyadooda qabiil aysa dhaafsaneen waayo qadiyadooda dhan waa qabiil marka aniga dhibaato walba oo aniga saaxiibaday isoo gaarsiiyeen iyo dhib walba ay isoo gaarsiiyeen ilaaha iga sarreeya hal qofaa waxu qabo inuusi jirin laakiin nolol inta ay jirto isma mutaysanayna xataa weji maanta aan bartay barasho igama sii baahna aad iyo aad marka in adeero aniga dhib intaas la eg ani marka uu isoo maray dhallinyaradan dhan aa arkaysid oo caawo magacayaashooda la sheegay insha allah dee meesha kuusoo fuulaan say hadda u dhegaysanayaan hadda u dhegaysanayaan wax walba ee qaldaa hoosaan ka xariiqan waane aad iyo aad waxay meesha kusoo galeenna waa hiilo qabiil ani iyo maxamed maxaa kalna laba nin oo ilmaadeeraan ahe maxaa ahayd xaggee kala jirnaaba laakiin isku dhadhawaan iyo aqoon iyo waxaas meesha kama shaqayso abo wallahi kama shaqayso qofka waxtarka leh oo shalay ku garab taagnaa berriyaa waxaa macquula inaad mutaysatid you never know dadkan maanta aniga dhibta igu suubiyey ilaahay waa awoodaa berri inay soo mutaystaan waxba kumaha ilaahay laakiin berri hoosheeda waa berriyay leedahay aad iyo aad abtiyow aniga waa kaasaa anigoo abti liibaana ummadda soomaaliyeed dhanaa sheekadan ogeyd waxaa maanta meeshaan la iskugu imaaday barnaamijka in la falanqeeyo oo qof walba dhibaatadii jacaylka soo marta ama mustaqbalka kasoo marta uu ka sheekeeyo maanta nimankaas aniga dee barayfasigii shalay ee iga heleen unbay helayaan tobicana maanta intuu quseeyey wixii dood ka qabana way soo istaagi doonaan insha allah ma abtiliibaan si qurux badan oo cadeymaheedu wataad uga hadashay annaga barnaamijkaygu waxa weye inta badan qof kasta inuu sheekadiisa uu ka sheekeeyo magacee lama sheegi jirin maadaama magacee la carabaabay sheekadan dhexdeedana oo sheekadan mar sheekooyin hore u baxay ay ahayd oo dad badan ay maqleen